ka badan boqolaal dad oo careysan ayaa salaadii Jimcaha shalay kadib isugu yimid qunsuliyadda Mareykanka oo ku leeyahay magaalada Johannesburg ee dalkani Koonfur Afrika iyagoo markaasi ka careysnaa film dhawaan lagu soo sameeyay dalka Mareykanka oo meel uga dhacay diinta Islaamka iyo Nabi Maxamed nabadgelyo naxariis dushiisa ha ahaatee dadkan oo wajiyadooda cara aad ay ka muuqatay ayaa waxay wateen boorar xukuumadda Washington ay ku weydiisanayaan in arintaasi wax laga qabto isla markaana gacanta lagu soo dhigo dadkii ka dambeeyay filimkaasi qaar ka mid ah dadkii ka soo qayb galay banaanbaxani ayaa waxay ku tilmaameen filimkani dhawaan lagu soo bandhigay dalka Mareykanka wax laga xumaado in aflagaada loo geysto diinta Islaamka meesha maanta waxa isugu yimid muslimiinta magaalada dhammaantood ayaga oo muujinayay maanta ay ka xun yihiin xadgudubka uu sameeyay Maxamed alayhi salaam marka wuxuu maanta banaanbaxan u dhacay si nabadoon waxaana ka soo qayb galay muslimiinta ku nool waddanka dhammaantood waxaana ka xunnaa dhammaanteena Soomaali maadaama Islaamka oo dhan waxa ka xunnaa filimka laga jiro Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam oo nimcina sida qaabka daran ee uga faalooyeen ee kala sheekeeyeen wax mamnuuc ah Islaamka ka tirsan Nabi Maxamed film ka sheekeynayna mana ogolin maanta waxa ka mudaarayna waxaan aad ugu xunnahay nabigeena sallallahu alayhi wasallam waxa laga sheego aad baan ugu xunnahay aad baan u cambaarayna cid wax ka sheegtay مداراتنا maanta aan ka soo qayb galay si wanaagsan u dhacay ilaa hadda socdo u dagaaltana xaq baan u leenahay meel walba aan joogno muslim oo dhan inaan u dagaaltano maanta u madaaraadin ilmeena inta aan u soo wadno xaq baan u leenahay insha Allah bidana Allah karim anagana guuleysanayna anagoo meesha ku muujinayna shucuurtanada ku aadan aflagaadada loo geysay rasuulkeena alayhi salaatu wasalaam waxaanu nahay islaam oo dhan muslim oo dhan ma meesha isugu yimid qolo walba qabiil walba dawlad walba waxaan muujinaynaa shucuurteena ku aadan halka waxaan isugu diintayada iyo nabigeena la hayna u dagaalano alxamdulillah diinta ilaahayna mar walba kor bay noqonaysaa gaaladuna dhulkay galaysaa insha Allah waxaan maanta aad uga xunnahay in laga sameeyo filimaan qaab daran oo aan micno iyo sal iyo raatoona lahayn nabigeena calayhi salaatu wasalaam danta kaliftay inaan maanta meeshan isugu imaanana waa intaas meeshaan waxa uu imaanay nabigeena sallallahu alayhi wasallam aflagaadii loo geystay mudaharaadno saawnahay Soomaalida joogta South Africa meeshaan doona baxay inaan xafiiskeeda maanta ku mudaharaadno inaan muujino shacairta islaamka sababtoo ah rasuulkeena waxa laga sheegay sallallahu alayhi wasallam si kastaba ha ahaatee xukuumadda Mareykanka ayaa aad uga walaacsan dibadbaxyadan isdaba jooga ee ka sii soconaya caalamka iyadoo xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ay arintani hore cudurdaar uga bixisay taasoo noqon mid qancisa dadka Islaamka ah Cabdinaasir Somani telefishinka caalamiga ah iyo Faisal TV Johannesburg